المتقين. ورحمة الله وبركاته. صحابي لو مغعاو ربيعة بن كعب الأسلم رضي الله عنه إلى كرال النقدي مال nabiga ayuu adeegi jiray maalin ayuu wuxuu u keenay biyo weysi markaas ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam sal wax ay weydiiso markaas ayuu wuxuu weydiistay as'aluka bi murafaqatika fil janna jannada macaaga inaan noqdo ayaa nabiga ku weydiisanay ayuu dhahay markaas ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay wa ghayra dhalik ta ummiya wax kale ima weydiisanaysid ta uma weydiisanaysa markaas ayuu saxaabigii wuxuu ku dhahay huwa dhaak wa ta markaas ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku amray inuu sujuuda badiyo xadiiskan walaalaha waxaan ka fahmaynaa saddex shay muhiim ah qofka qof u adeego waxa fiican inuu ajar siiyo oo ku farxo soo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dhahay saxaabigan sal wax i weydiiso tan labaad xadiiskan ka fahmaynaa waxay tahay qofka waa inuu lahaadaa mar walba himma caaliya taacadooyinka cibaadada rabbi waa inuu mar walba hamigiisa kor u qaado meel kor ka fikra meel aad u sareysa oo jannada gaarsiinaysa saxaabigan sallallahu alayhi wasallam markuu wax i weydiisa lagu dhahay oo u dhahay murafaqataka fil jannada macaaga inaan noqdo tan saddexaad aan xadiiskan ka fahmaynaa walaalahay waxay tahay qofku waa inuu badiyaa sujuuda waxay ku gaarsiinaysaa meel aad u weyn xadiiska ku sheegay qofka haduu hal sujuud oo rabbi u sujuudo ilaahay wuxuu ku gaarsiyaa darajooyin caali ah qofka sujuud inuu mar walba badiyo salaadooyinka badiyo wuxuu ugu dhawaadaa rabbi ayuu ugu dhawaadaa darajooyin ayuu kor ugu qaadaa dambi ayuuna ku tirtiraa aan ku dadaal barakallahu fiikum wa salaamu alaykum